marka hore waxaan salaamayaa wasiirka warfaafinta iyo wasiirka maareynta iyo masiibooyinka iyo agaasimiyaalka wasaaradaha iyo wakiilka baarlamaanka dhammaantood waxaan salaamayaa 140 ku salaamo salaanka bacdi waxaan rabaa inaan idinka siiyo war kooban gobolka dhammaan gobolka Boqol sidoo ku sugan yahay kaliya ma aha magaalada xudur kaligeed ma aha dhibaatada gobolka Boqol oo dhan waay sidaad ogtiin awalba laba magaalo waa la haystaa gacanta cadowga ku jiraan saddexda kale hortaana waxa way dhibaatooyinkan waa ka jirta dhibaatooyin kulli waa ka sameeyeen gobolka dhamaantood waa ka sameeyeen marka sidaas daraadeed waxaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo dadkan in la soo gaaro kaalmo degdeg ah meel kasta eelbirde waajid xudur intaas ay taqaxootiga waa ka sameeyeen meel dhaanta malaha xudur waxa u dheer marka iyo waajid xudur iyo waajid waxa u dheer oo qabateena saaran waajid hadda waxa ku roon yahay xogaa biyo waa leeyahay laakiin xudur biyana malaha oo qabateentana zaid waay oo yarada biyo la'aanta caafimaad darada halka waa ka sameeyeen kullu shabana jiro meeshan dadka soo qaxay kullu waa shumay meel baan u sameeyay hadda oo maxay tahay dad karantiil aan u sameeynay oo dadka baadiyaha ka imaana oo lagu karantiilo marka dhibaatooyinkaas dhammaan gobolka waa ka sameeyay waxaan codsanaynaa oo dawladda aan ka codsanaynaa koo muhiimad horta waxa waaye in dalka nabad loo helo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud balantiis waxa ahayd inuu dalkan horeyn doono inuu dalkan horeeyo ma gaarayso Soomaaliya oo dhan adduunyada ma masruufi karto dalkan wuxuu ku fiican yahay in la horeeyo nin walba beertiisi iyo gurigiisi iyo xoolihiisa daagsado laakiin sida hadda lagu nool yahay nolol ma aha shan magaalo gobolka Boqol shan magaalo shanta magaalo u gudbayso male marka waa dareemaysaa dhibaatada meesha jirta marka waxaan codsanaynaa hadii Ilaahay yiraahdo dawladda cusub waaye talaabo qaadkeeda waa fiican tahay hadda sida soo bilaa waa fiican tahay balan qaadkeena maxay to degdeg wax loo qabtaa ahayd waa ku maasan yahay madaxweynaha iyo guddiga soo qaban qaabiyay in Boqol la soo gaaro raashin yar raashinka ma yara raashinka maanta la keenay ma yara anaga waxaan taagnahay qaraan aruurina qaraan hebelow 5 kiilo keen 3 kiilo keen 4 kiilo keen laba diyaaradood raashin ninkii loo keenay oo xalay 5 kiilo raadinay waa ku filantahay meesha ay gaaraysan gaarsiinayna iyo dadka tacbaanka aan ku hormarinayna insha Allah taala marka waxaan ka codsanaynaa dawladda salaan naga gaarsiya idinka marka tagtiin kulay ishiina inaad ku aragteen oo goobaha dhan aad tagteen halkii jaanis ma haysataan waxaad leeyahay arki leedeen laakiin jaaris ma haysataan sidaas awgeed dawladda waxa naga gaarsiinaysan salaan iyo maxay too reen raashinkan oo hadda la yiri feestada laga daayo qarashka loo duwo dadweynaha loo duwo liinan tala aad u fiican way tala aad u fiican ahayd dadkiisa dhamaa oo gurbaan hadda ma tumi karo ma feestan karo dadkii aba dhamaan way marka sidaas daraadeed taladii dadkii soo jeeday tala fiican ay soo jeedeen waanu ku mahadsanyiin madaxweynaha waa salaamayna waa soo dhaweynayna daraad markii la doortayna waa soo dhaweynay waa feesteen wax walba sameeyay haddana waxaan leenahay talaabadaas uu qaado waa ku mahadsan yahay salaawadiisina waa ku mahadsan yahay marka waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo talaabo tan ka fiican inaad markaa tagtaan xaqna soo gaari doontaan rajaynaynaa idinka qayla dhaana tihiin qaylada naga gaarsiiya dawladda naga gaarsiiya caalamka naga gaarsiiya hay'adaha samafalka naga gaarsiiya dhammaan gobolka Boqol aan u hadlaaya gobolka oo dhan waa ka sameeyay abaarta dhibaatada biyo la'aanta raashin la'aanta daawo la'aanta kullu waa ka sameeyay gobolka Boqol marka sida awgeed waa idin soo dhaweynaynaa